waan ka wada hadalnay mas'uuliyiinta dawladda iyo gudoomiyaasha degmooyinka waan ka wada hadalnay waxa ugu horeeyo aan weydiiyana waxay ahayd lacagaha xad dhaafka ah dadka laga qaado inaan laga qaadin dadkeena abaar bay ku jiraan in kabaandho qof lacag laga qaado aysan jirin Dadajabula 6 maalmood bay joogeen kabaandho 6 maalmood meel jooga ma aragteen wali ma aragteen 6 maalmood Dadajabula saalhay 6 days somahin 6 days illa la waayo qof loo jaro kabaandho goob walba oo la geeyana sidaas oo kale noqonaysa insha Allah taala diif maantay u baxeen sarif qolooyinka Dadajabula joogay baa u baxay ilaa ay dhanka Shimburbuul ilaa Sabuuli dalsan deegaankeena dhalinyarta joogto iyo dadkii waaweynaa laftooda ee kabaandhada ku waayay adeeg xumadiina haysatay sanadihii hore waan ka baxaynaa anigu qabiil ma ahi meeshaas yaan kabaandho la geynina laygama maqlay meel walba oo Wajeer South kamid ah kabaandho waa la geynayaa waana loo goynayaa dadka insha Allah dadkii faraha qaxootiga ku jirayna waan ka saari haynaa in badanna waan ka saarnay in badanna waan ku howlanahay qaybtii labaad baa hadda bilaabanayso insha Allah saan idin sheegayna anu qabiil iyo reer hebel dur iyo suxul duubki maaragtay suxulka la isku dhufanay way dhamaatay suntii qabyaaladeed waan soo afjarnay Soomaa qabyaaladuna been waay wallah been waay qabyaalada sheegay la yiraahdo been waay waxaad ku garanaysaa qof walba oo idan kamid ah ka fikiro marka aad ugu daran tahay eed ugu liidato qofka aad wacayso aad wacdid kaliya ma aha ku soo istaagaya ku soo gurmanaya ma kugu qabiilba qabyaalada been waa dad midaysan aan noqono oo u guntado inay dantooda ka shaqeeyaan dantuna waxa waaye danta guud ee aan wada wadaagno in wadooyinka noo wanaagsanaadaan waxbarashadeena la tayeeyo ciyaalkeena ay nolol ka wanaagsan tii annaga aan ku soo kornay ay ku koraan insha Allah taala kuwa ka dambeeyana ay wax ka sii wanaagsan dhaxlan taasaan u soconaa insha Allah in badanna waad naga arki doontaan talaabaqaadkeeda khayr iyo baraka idin rajaynaya